joogtaan waa salaam ya salaam korkina waxaan rabaa inaan hal qodob ka hadlo hadalkayga ma badno waxaan ku qaadaa dhigayaan sana dhex marayaan qodobkaas ku saabsan 14 bisha oo shalay ahayd waa golaha fulinta ama golaha xukuumadda executive committee cases waxay soo saareen xeer ay leeyihiin waxaa lagu xidhiidhaa golaha wakiilada xeerkaas oo soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xeerkaas oo ku saabsan wadadii loo mariyay dastuurka in dawladda hadda joogtaa ay ku meel gaarka ah muddada ay u harsan yihiin ay u madahan tahay inay muxuu ahaa dastuur gacanteeda ku qorto dawladdan mandatekeedu ama waxa base ay ku asaasan tahay charterkii temporary-ga ummaduna waxa markaa ay ku asaasan tahay ama u qoran hadaysan ixtiraamin waxa weeye muxuu ahaa sharcigii iyo kala dambeynta law order-ka meesha ka baxaya golaha sare ee maamulka si qaatmo golaha dhaqanka golaha sare wuxuu ansixiyay 24 July 2023 charterka ku-meel-gaarka temporary-ga ama axdigan ay dawladdu ku asaasan tahay hoggaanka lagu dhaariyay ee golihiisa xukuumadda cidda awoodda leh iyo meesha la aadayaan waxa weeye awoodana shacbiyadda ah qodobka 26 wuxuu sheegayaa wixii maamulka caqabad ku ah iyo wixii maamulka muxuu ahaa back up ama marshal ah isla maamulkiisa doorna kuma leh meel ay dastuurka ku qoran tahay ma jirto in axadga meel ay ku qoran tahay ma jirto labadan sano ee ku meel gaarka in dawladda hadda jirtay waqtigeeda gabaabsiga yahay ay dastuur ama constitution waxa la yiraahdo ay qori karayso meelna waajibaadkeeda ma shaqo taalama dawladdana xoreyn maamul daadajin iyo shirweyne weey maamul daadajintina wixii daadajin karaysiina muxuu ahaa qaban karaysiina waxa weeye maamul walba waxba la daadajin wixii awoodeeda waxa weeye deegaankana cadawga qaar baa laga koriyay qaar koodna magaalooyinka xirgaabo iyo Afrika waqtigii dawladdan waa gabaabsi bila yar baa waajibaadka dawladda saaran waa inay shirweyne dadka isugu yeedho shirweyne ay ilaamiso dadku meeshay aadayaan waxa weeye dadkan waa dadka halganka nafi maal ku bixiyay iyaga dawladda uga naxariis badan dadka banaanka jooga hadii la leeyahay muxuu ahaa magacyada loo bixinayo iyo dadka hadda dawladda jooga waxa uu tabaciyaa marka halgankii meesha wadada soo maray oo hadda dawladda jooga kuraasta fadhiya marka dadka in la ixtiraamo oo aan magacyo loo kala bixin baa loo baahan yahay wasaaradda wafaafinta dadka kala qayb wasaaradda loo doonayay inay ka hadasho muxuu cadawga la hadasho arrimaha xirgaabo ka hadasho hadda xildhibaanada Soomaaliya xirgaabo ka hadlay oo muxuu ahaa ka hadlay walahi madaxweynaha waan soo qabanayna jeel madaxweynaha ku xinaa jiray Hargeysa oo beena way la mid tahay anigoo ilaahdo muxuu ahaa ciro waxa uu ku xinaa jiray jeelka buuhooda ku xinaa jiray ku sidii la mid marka waxa weeye muxuu ahaa waxa wasaaraddu ma aragto dawladdu waxa weeye qorshe xirgaabo kama yeelan dadka xirgaabo ka soo qaxay ee gobolka ka soo qaxay ee maatada ay cadawga barakiciyay ilaa uu fulay ilaa deegaanada jooga muxuu ahaa warani dawladdu qorshe iyo dibadajin iyo muxuu ahaa rehabilitation uma sameeyay gudiyo uma magacaabo kuwilaas xanad ku soo qaxay ee kaanti roona ku kale muxuu area-da ku haray dawladdu waxa weeye kalama hadmay sameeyay orientation iyo muxuu ahaa in dadka u sheegto in dadka guriyaha laga jibiyo qurba joogta iyo dadka la abaablo dadka guriyaha bilaash maadaama ay gurigooda ka soo baxay dad ehelkina walaaladeen ay yihiin in muxuu guriyaha loo bandeeyo cidii marka kirada muxuu ahaa aan ka deyn karin kirada jiib uga dhigto u jibiso waxa weeye cidii marka qurba joogta guriyaha waa walaal guriyaha muxuu ay guriyahooda muxuu ahaa si volunteer ah u siiyaan marka waxa soo dhan baa dawladdu gabtay ma aha in dadka siyaasadda iyo wax lagu mashquulo halkan kareerisiina wada dheer u soo maray maalin kasta wuxuu dhibano ahaa siyaasi damciisu yahay kursi iyo dhaqaale shalay 2012 talix markii la tagay koox baa tiri anaga u baa muxuu ahaa aamin dadka inta kale waa tuug reerisiisi annaga wax walba qorayna saddex madaxweynaha u sameeynayna milix bilood buu haynayaa wadadaas la maraya dadkii intiina kale waxa weeye halka geedkaas fadhiyaysan waxa weeye muxuu ahaa dadka workshop baa loo qabtay maantana in muxuu ahaa iyadoo 900 oo inamay gabdhale ay halkan u dhinteen nafi meel lagu waayay in damac lamida ku xusii tiraada anaga mooyee iyo anaga muxuu ahaa aamin mooyee waxa weeye inay wadadaas oo kale iyo fikirkaas oo kale iyo ideology-gaas oo kale ay la timaado 2004 iyo 2015 halkankii dhibaato dadka soo maray looga wax dadka iyo aan wax dadku fulayeen muxuu ahaa maaha golaha xukuumaddu ama golaha fulintu iyada baan wada socon shirka golaha fulinta ee madaxweynuhu hogaaminayay madaxweynuhu ku-xigeenka ka maqnaa fulintu waa dastuurka ku wada socon madaxweynuhu ku-xigeenka dastuurka ku wada socon maxaa fulintii baan arrimaha dastuurka ku wada socon madaxweynuhu wuxuu leeyahay wixii ku dhaarnay kitaabka u marnay waxa weeye muxuu ahaa in ilaahay gacanta ugu marnaan ummadana ixtiraamno maxay kitaabkan marna ixtiraamno marka waxa weeye wasaaradda wafaafinta iyo wasaaradahan muxuu ahaa hadda wasaaradda cadaaladda ee la yiri waxay keentay xeerkan xeerba ma leh wasiirka cadaaladda wasaaraddiisa xeer ma sameyn ma dastuur ku hadlaya wasiir wasaaraddiisa xeer u sameyn karo ma dastuur cid kala hadlaya wasiirka waajibaadka iyo mandatekiisu waa xeerka iyo booliska wasaaradda sameey dastuurka shaqo waa waajibaad kale
وزارة عدالة اللي هي دستور بيكانت حيرة كل شقة سمالة أقاسموي واحد مالة وزارة ورفافنتو وحوي أقاسم واحد الله ما صمين حيرك ورفافنتو ورياش الوكل هاجي ورياش يدور كل الشقينين يقف وريها الدم بيقرا محوها يكون كسور شيء محوها قرن مضى محوها مع أربعة عيد مضى أيوة الله بانين بهي حير قبط مالة وزارة عيارها كودي وكشت وقت طبعا حير مالة وزارة عيار وزارة هوينك كوتشت كودي دستور حير مالة dadka wasaaradooda xeerku sameey karo inay dastuur ka hadlaan maaha inay umada ka xishoodaan bahay wasiir wasaaradiisa xeer iyo policy ku shaqeynaysan inuu dastuur ka hadlo taanu garan maayo waa islaanti tir xaabadii inta xaaba qaadi kara weeyday dhowr xaabo qoriyaad tir xaaba kale igu soo darinta la kici kara weeyday wasiirada mandate-kooda shaqada horta wana wasaaradooda u sameeyaan muxuu ahaa wana wasaaradooda u sameeyaan waxa la yiraahdo xeerar xeerar shaqada wasaaradooda baan structure-kooda dhisnay agaasimayaal lahayn oo muxuu ahaa oo aysan lahayn أقسم واحد درهين وما حقيقة بالدرهين وحوي سو شقينين شقوين كل استركتشر كله يصير عدين يقولوا سيقول وزير كيني كرو حرك وزارة سينو دستور كهله ويا دستور ما كهله يعني هو عيب وزارة ده حالنا حنداب كل شغله اللي تبغى نقول وزارة اللي ما تفلوا بيه وزارة اللي ما يقطع في ده حرب وزارة اللي نسميه كروي أقسم واحد ده استركتشر وزارة ده لسه كروي الدستور ما كهله صار دستور واجبات حقوق الرئيس تدخل واجبات كذوك على هيدا حرك كذوك على هيدا نفوض حرك ورفعت هو حرف فضو حرك محوها هوينك يا رمال قيس يوم مرة تسكال يحوض وحرف فضو حرك عدالة محوها وزارة ذكال يقول سبيل وحرف فضو حرك عيارها هي محوها هي كرحدينتي واجبات وزارة عيارها يعيش يقول لي وحرف وحر ما هي وزارة دستور كالا وزارة وحلية والوضعين رقمضا محوها ميلها كلك سواردين لما جوجي dadka shacabka dadka hadda magacadu bixintan maamulka wiilka tababariyay nool bixlugiin wala garanaya nool bixlugiin wala garanaya marka dadka ina ka xishootaan baa maxaa loo baahan yahay wixii meesha ka xumaadana waxa weey cid mas'uulka ah qaadis waxa waajibaadka qaadis dawladani dastuur awal male mandate ugu qornaa charter ugu qornaa waa qarska xornimo دولته وحالنا حينداب كن كسر نقطة نقطة أصلا مركز دي دماتن شروينية إعلامية هل كاسافور مولدي إرجوي واحد بحد يكون حدين شروينها قاب كلو قبنا أيوه عدة صوح لنا سيرجع مع البيلاها كقرن واحد بشاتر كم يكون حدين ميل دولته كسر كشرم محوها ديدين يمحوها أمن السكورة تكون دولته كسر ميل كلا كسر كل كرتام دولته ما دولته كم الجار كورة ملحوينها شاتر كان بملحوينها أبد من يحكي بالدليل بالجسمي ملحوينها بالجسمي حركي وحوي حق هيال بشري مدحونه كي أمد من هاللو قصني كابدي يحكبدين وطوب كان حير قراها وكذا والله احترام ما محوها ماشي فرلق قليين شنطة بالسوق اليوم تمام كعمود ماشي قراه وزير ده هيال بعين وحلقة دقيقة محوها قراه وزير بارمك قراه دحية وحلقة دقيقة محوها حل بعضنا مدحونه في الدبدة كيني يا قراه وزير ده وروح عيني قراه حكي مادان وهذا بارم اللو بدري شاطر بحكوا قرنا إن وزيرة أكسكتيفك وزيرة قرها دحلية كين كم مدحونه في وزيرة بناك نقول كين كراوت الله قانا مدحونه في حلبانة ده حقوق قنعية حلبانة ده يجوا وقت معهم محوها الديجانك وقول حكي على فضل بيوحى وقول عليه إن بناك لقى كين وزيرة يسوقنا وحد ديدي إن هو جاميها بناك لقى كين وجاميها وحقوق قرن شاطرك وجاميها الحلبانية يقولها بحكم ديان مركب بعد يقولها الحلقة بحضرت وحد ديدي يسوقنا وجاميها بناك وجاميها بناك لقى كين كم بارلمان waxay ogolaadeen wasiirada banaanka laga keenay karo gudahooda in laga keenay karo baahan iyaga dadku la xijacla badnaaday iyaga ogolaadeen wasiirada banaanka laga keenay karo dadka fursad siiyo isaguna cid banaanka joogta inay isla sharxi karto muxuu ahaa uudi wadada aan ku yimid golaha dhaxal laga doortay qof golaha dhaxal ku jiro qof kale muxuu ahaa hadii uu shaqeyn karo sababka sharxi karay marka waxa weeye la ixtiraam loo baahan yahay maalin walba ma shacabka reerkiisa inay dibroon noqdaan siyaasi kursi iyo dhaqaale iyo mas'uul doonay wixii horeyna soo maray 10 aan ugu filnaaday talada dhulka hala dhigo shacabka talada lagu celiyo shacabku dawladda iyaga ilaashada waxa weeye waad ogeeyeen sanad gudihii ka soo wareegtay dawladdu ma diyaarsanay golaha fulinta ay go'aan baa meel u yaalay shacabka laga baqay iyo quwadda shacabka ilaa shacab ma laga baqay madaxweynuhu adiga arkay golaha fulintu cid kuma soo casuumin dadka faqaara kala ma hadlin waxa la doonayay ummadda faqaara kala hadlaan ummadda muxuu u sheegaan in cashuuraha iyo amniga si fiican looga shaqeeyo waxa cashuuraha iyo dadka qaar bixiyaan amnigii muxuu ahaa
عندك الواجبات كنا قطنية بحيان ونرش بالهذا الدفاع نرش الدفاع بيكون عشرته قفك أولا وعشرته حنا كواجب وتصبين إن دفاع الدجاج كم هو وهي مسؤولية وضرين ودولة الشعب أنا نسكوي أنا معناه والبحر وقمان كريه الله مستعان والبحر وقمان كريه وخبطه وحوي محوها وحصل وحلا بين الملف قال يلا قاهو تذكر حوي هدير بالوسط الحري because دولة قرشة كمان راحين دولة الفدرالية اللي جمسوا عسومين دول قرشة دولة ما هي ما إن ما نطلع الحسن المرة الشعب كان على قبل هو حوي دتك واحد كذا اللي كان اللي قد أيوه دتك اللي قارب محوها بعد نبقى قرطة إنه حس واحد إنه حد عدو مقرنا ما تذكر السي والتشوق بروك والتشوق وده ديجاك والدفاع ده نفي مال بوضع بحناية محوها بدول نوضي راشناية قف حوي محوها وضنيني متى قف اللي بنرشيسه يوحوي محوها يعاكس الدفاع عليه مركب حنا وزارة عدو الله هذا الشغل هذا حلبان عرقانك هذه هذا هو جوا وزارة ما هنا مرة محوها حبيت على حش قف قروا كهذا ودتك ما صامين كلها واحد لو عدقان كصامين كلا وسجل مرة قف لاس عنو تشوفوا محوها فيسبوك وقرا من ميلو كهذا إن هذا عشان وزارة العدو محوها هنا الله هذا الشيء محوها بالون هاي وزير أنا وحنا ليه وزاردين نكون في الله وزاردين ما تقدر تصدق وزير الحرب وزارد مسوهين واشتركت بوزارد الصباين وقاعد اسمه حدود يا حتى بدي بعد وزارد مسوهين إما أنا دستور موجود شكية وهم من آيات الله كم حنا يا حين داب في دولة الله الأمور شعب غير الشيء وحنا مبان غير يسكتون على دولة المدن يوم الديجان كنا يجا محي قاعد يروح هنا يجوا عشان قف الله عليه قف في أركان وقف وياه ماشي وضد الحميد أي كلمة دينه كل علينا كعبر السنة السلام عليكم ورحمة الله.